warar ka imaanaya degmada Xaaji Saalax ayaa sheegaya in deegaano hoos yimaada degmada Xaaji Saalax ay dilal ka geysteen shimbiraha loo yaqaan gorgorka saacadihiina soo dhaafay sida uu noo cadeeyay gudoomiyaha degmada Xaaji Saalax Cali TD oo aanu khadka telefoonka kula xiriirnay goor dhaweyd. Gudoomiye waxa si toos ah ugu jirta khadka telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV. waan gartan bal waxaad gudoomiye nooga warantaa shimbiro la sheegayo inay ka geysteen dilal deegaano hoos yimaada degmada Xaaji Saalax. sida lagu sheegay way goor ay magaalada Hargeysa joogaan sidii soo sheegeen maamulkii oo siiyay gudoomiyaha iyo xaqiiqiyo goor ay tahay salaadii maqrib horteedii ayaa meel degmada Xaaji Saalax u jirta ilaa 4 kiiloomitir xagga Itoobiya ayaa gorgorkii bariyahan lagu sheegay hawska oo inay ilaa sigaar jira ku cunay ma garad inanka waxa la yiraahdaa مولد آر باليدا إنك سوون بيريودي gudoomiye dadiisu ilmaha intee baa lagu qiyaasi karaa sida imkaan suuri ku soo diri doono inanka sagaal jir la timir meelaha weeyaan sagaal jir ilaa 10 jir ha shimbir kan bal faafaahintee lag baad naga siin kartaa isaga sidii bariyahan ba insan degmada Xaaji Saalax joogay oo deegaanka Shaamana ay ku jiraan ilaa 80 kiiloomitir horaba la inoogu sheegay shimbirkan waxa lagu sheegay inuu yahay galeed taasan galeedka baaska la yiraahdo oo horana uu wikiisa oo maqashan bagaashamo markaan ay wala dilay laakiin aniga laftiisa ayaa xalatan hore YouTube ka daawanayay dalkii shanaad oo guday u dhow lagu sheegay inuu kala ku cunay suuna caruur marka dadku markii hore waxay u qabeen inuu hal mid yahay laakiin sideen kasayno aragno ama aynu maqlaynaba ما هو شنبر بدنه ده إلهي يدخل أهمية إنه كتسكع عنان. بالقدومية محاض ورقة تول قلتها على جرام ما دام عروري حولها الله درسدي وقارسنا يو. والله ده مرة في شيء بدن بلو بهاي ده بس كان حرقتها ده كسر شيء إنه نقانه وضد حولها تسكع درسته وعنده واحد برشية حو درين مرة عروتي الريد ممكن إنك تمشي في غرفة دي لكن خير ند من بوقة سريع وانقرخاي والدينتا iyo dadka kale hooyooyinka ama waalidiinta abayaasha waxay ku codsanayaan carruurta la ilaaliyo aan xoolo loo diintay waxaan diisan yihiin gudoomiye dhimashada halka qof mooyee wax kale qasaare kale miyuu sababay bahalkaas ma wax kale qasaare u sababay jirto maaha markii horeysay ay dilal u geystaan carruur yar shimbirahani balse waxay soo taraya waxyeelada taban ay ku hayaan bulshada reer Somaliland shimbirahani balse iyadu jamhuuriyadda Somaliland ayaan go'aano ka soo saareen shimbirahani iyagu waxyeelada u geysanaya carruurta reer Somaliland Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Bro